taliska booliiska Soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku dhigeen shabakad ka ganacsan jirtay carruurta ku nool magaalada Muqdisho. madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay xariga wasiirkiisii amniga digniin u diray dawladda federaalka. muwaadiniin Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika. faahfaahin ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal u dhaxeeyay laba beelood oo ka dhacay gobolka Galgaduud. maxkamadda ciidanka qalabka sida oo xukun ku riday rag loo haysto qaraxyo ka dhacay Muqdisho. roobab dabaylo xooggan iyo baraf watay oo ka da'ay deegaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya. baarlamaanka Jubbaland oo codeeyay codsi ka yimid madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu dalbanay in loogu dhigo magacaabista golihiisa wasiirada. shacabka magaalada Muqdisho oo ka hadlay sida ay u arkaan go'aanka duqa Muqdisho ee lagu furayo wadooyinka xiran. dibaddana waxaa ka mid ah Maxamed bin Salmaan walaashiis oo xabsi lagu xukumay. booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen shabakad ka ganacsan jirtay carruurta ku nool magaalada Muqdisho. taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay gacanta ay ku dhigeen koox iskugu jirtay haween iyo rag ku howlanaa muddo dheer ka ganacsiga carruurta magaalada Muqdisho. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen Axmed oo barteeda Facebook ku daabacday sheekada la xiriirta arrintan waxaa warbixin dheeraad ah ay kaga bixisay howlgal ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaas oo ay ku soo qabteen shabakad sida muuqata isku xiran oo ka ganacsan jirtay carruurta da'doodu ay ka hooseyso 17 sano jirka. ciidanka booliiska gaar ahaan hoggaanka dambi baarista ee CID-da ayaa waxa ay soo qabteen shabakad ka ganacsan jirtay carruurta kuwaas oo in muddo ah la daba joogay kana badan muddo bil ah. waxaana howlgalkaas lagu soo qabtay 11 eedeysanayaal ah oo ay 8 ka mid ah ay yihiin haween. sidoo kalena waxaa ciidanka booliisku ay soo badbaadiyeen 11 carruur da'doodu ay ka hooseyso 12 sano jir ilaa 7 sano jir. waa 7 bil oo kaliya jiray kuwaasi oo laga beec mushtarayay isla markaana talisku ay sheegeen inay in muddo ah ay ku raad joogeen macluumaadkooda iyo sidoo kale cabashooyin kaga yimid bulshada oo la xiriiray inay carruur badan ay ka maqan yihiin. dadka la soo xiriiray waxa ay sheegeen in ay muddo 3 bil ah ku dhawaad ilaa iyo 4 bil inta u dhaxaysa ay carruurtooda ay maqan yihiin jaan iyo cirib meel ay dhigeen ay waayeen. sidoo kalena dhowr qof oo iyaguna warbaahinta la hadlay qaarkoodna tagay xarumaha warbaahinta ayaa sheegay inay la yihiin carruur isla markaana ay ugu wardambeysay markii ay aadayeen dugsiga Qur'aanka ama ay ka imaanayeen oo ay ku ogaayeen. waxay intaas ka dambeeyana waalidiinta waxaa haystay walwal laakiin arrinta waxa ay sii murjinaysaa warbixinta maanta ka soo baxday hay-adda dambi baarista CID-da ee magaalada Muqdisho oo shabakadaas ka ganacsan jirtay carruurta la sheegay in lagu baarayo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ka hadlay xariga wasiirkiisii amniga waxaana digniin u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa uu si faahfaahsan uga hadlay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo. waxa uu ahaa shirkiisii jiraa'id ee ugu dheeraa isla markaana uu kaga hadlo xaaladda dalka iyo tan deegaanada maamulka Jubbaland xariga wasiirkiisii amniga iyo hanaankii uu ku dhacday doorashadiisa. Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in doorashadii 22-ka bishii Agoosto ka dhacday deegaanada Jubbaland ay soo ifbixisay khilaaf ka dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland kaasi oo gaaray meeshii ugu xumeyd isla markaana waxa Jubbaland ay ku dhawaaqday in aanay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda tagi karin Kismaayo halka dawladuna ay uu sheegay inay ka xiratay hawada taasina ay ku khasabtay in ay dhibaatooyin ay la kulmaan dad badan oo u badan haween. sidoo kalena dadka dhibaatooyinka dhinaca duulimaadka kala kulmay waxa uu sheegay inay yihiin dad ay markaasi xanuuna ay hayaan. mas'uuliyiinta dawladda ayuu sheegay in lagula xisaabtami doono mustaqbalka wixii ay sameeyeen intii ay xafiiska joogeen. wasiirkiisii amniga ee Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in lagu xiray shirqool sidoo kalena la casuumay. inkastoo uusan sheegin cidda casuuntay haddana waxa uu sheegay in xarigiisa dawladda federaalku aanay jirin sabab ay u cuskatay isagoo intaasi sii raaciyay in ay odayaal dhaqan iyo sidoo kale dad aqoon-yahano ay u tageen madaxda dawladda kalena hadleen arrintaas
laakiin waxa uu sheegay in wasiirka amniga lagu amray haddii lasii daynayo inaysan aqoonsanin doorashadii ka dhacday Jubbaland lagana soo horjeestay isaga taasi uu sheegay inaysan u cunanaynin. wasiir baa hadda la xidhay maxaa lagu xidhay waa su'aal wasiirkii amniga oo hawl shaqo u jiray intii loo yeeray oo leeyahay kulan baan rabnaa inaan kula qaadano oo meelo kale looga yeeray markuu soo dayay baa la xidhay maxaa lagu xidhay waxaa jirtay maxkamad warqaday mar hore qortay oo la yiri dad baa loo haystaa shabaab iyo waxay ahaayeen bay isku jireen leeyahay dad baa la dilay waa laga soo tagay afartii bishii abriil baa maxkamaddu waxay qortay ninka in lagu waayay dambiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayay lagu waayo wasiirkiisa oo shaqadiisu u tocdo magaaladii maray waa la qabto waa la xidhay waa lala hadlay isaga wuxuu ku yidhi waran in xidhan baan wax igala hadlaysaan waa ma waxaa loo yeeray dad qaraabadiisa ah intii lala hadlay baa kaala imaadaan ka wada xaajoodnay maxaan ka xaajoodnaa waxaa la yidhi kow waa inaad ogolaataan si aan u sii dayno wasiirka Jubbaland inaad tirahdaan dhismaheeda ma aqoonsanin way burburtay laba in doorasho lagu qabto goboladaas gedo saddex ciidamada la hayo in la soo wareejiyo markaas waxaan samaynaynaa heshiiskan nala gashaan baan isaga soo daynaynaa waxaa la yidhi heshiiskan uu idinlama geli karo dowladda Jubbaland la yidhaahdo way jirtay qabiil meesha kuma shirinaysaan Soomaaliya maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnaa ma isagii soo daaya Jubbaland kala hadlo waxaad kala hadlaysaan wasiir xasaanad leh oo la yidhi dambi waa lagugu waayay oo iyagu cadeymaha waa la cafiyey waa lagugu waayay. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu sheegay wadada dawladdu ay ku socoto haddii aanay dib uga fiirsan in ay ka dhalan doonto arrin aan wanaagsanayn dibna loogu laaban doono dagaal sokeeye sida uu hadalka u dhigay. faahfaahin ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka Galgaduud una dhaxeeya laba beelood. Mawlid Macalin Xasan ayaa wararkii ugu dambeeyay ka soo diray. iyadoo magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ka socdo shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanka Galmudug ayaa haddana qayb ka mid ah deegaanada maamulka Galmudug waxa ka socda dagaal beeleed u dhaxeeya beelaha deegaanka Galmudug ugu yaraan 4 ruux ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay xiisado colaadeed u dhaxeeya beelo walaalo oo ka soo kala jeeda degmooyinka Guriceel iyo Balanballe. Axmed Cabdullaahi oo ka mid ah nabadoonnada Balanballe oo la xiriirna ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in dagaalkan u dhaxeeya labada beelood ay jirto cid hurinaysa isla markaasina doonaysa inay ku fashiliso shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanka Galmudug ka socda Dhuusamareeb. taaka u dambeysay nin la odeysinaaraya daraad waa tahay halkaan laba ku dhimatay jeelal iska soo dhex gashay dhibaatooyinkaasuna waxaan baa ugu diraynaa dowladda federaalka oo iyo dowladda Galmudug waxaan ugu diraynaa arrimaha shirka ka socda Dhuusamareeb dhibaatooyin asaga ku socda anaga soo wajahay ma garan waxaan loo sheegay oo ognahay meesha dagaal siyaasadeed baa ka socda dagaalka siyaasadeedna niman baa dhabarka ka taagan kuwii jaxaabinaya ka Dhuusamareebeed ma garan caqabad joogta ah jirta haddaan nahay odayaasha guutada degmada Balanballe waxaanu leenahay caqabada joogtada oo jirta waxa laga qabto waxa loola danleeyahay waa shirka Dhuusamareeb baan ku leeyahay marka caqabadaanu ma jirin shirka Dhuusamareeb door ma jirin deegaanku way isdili jireen oo ka dhici jireen laakiin waxay ahaayeen wax ama bilaa ama laba bilood la ahaayeen ama laba bilood ama bilaa halkaas baa ku dhintay ma garan. dhanka kale gudoomiyaha deegaanka Ballahood Macalin Maxamed Xasan Mire oo la xiriirna ayaa isna sheegay in dagaalkan uu yahay mid hore uga dhaxeeya beelahaasi walaalaha aysan jirinin cid ku fashilinaysa shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanka Galmudug. arrintaas waxa ka jira ma dadkaas waa dadka deegaanka Balanballe degan waxay ku dirirayaan hadda waa wax qadara marka waa arrin hadda deegaanka Balanballe dadka dhaxeeya waayo wax ku dirirayaan meesha ay ku dirirayaan waxa la sheegay dad inay riixayaan dagaalka ka dhaxeeya labada beelood arrintaasi ka waran wax ka jira ma dadkaas dad dirso waayo wadada Balanballe wada degan dagaal coladeed oo dhex maray wayna sidii u socdaa marka waxa riixay wax daba riixata midna ma jira laakiin waa dagaal laba beelood meesha waa degmada Balanballe waa degmada dhaxeeya waayo. xiisadan colaadeed ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug oo ka socdo shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanka Galmudug. Mawlid Macalin Xasan Mawlid Maanka Radio Dalsan Dhuusamareeb. waa mahadsan yahay Mawlid Macalin Xasan. roobab dabaylo xoogan iyo baraf watay ayaa waxa ay ka da'een deegaana ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Abuukar Axmed Xasan Dayax ayaa faahfaahinaya.
deegaano ka mid ah dalka Itoobiya iyo qaybo ka tirsan deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa ka da'aya roobab baraf wata iyo dabaylo xooggan taas oo saameyn xoog leh ku yeelatay dadka degan deegaanadaas meelaha sida aadka roobabku ay uga da'een sidoo kalena lagu arkay baraf wadooyinka iyo guryaha qaar xiray ayaa waxaa ka mid ah magaalada Diradhabe Harar iyo sidoo kale magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in qabowga dhacaya awgii aynan guryaha ka bixi karin isla markaana dawladda Itoobiya ay dhaqdhaqaaqiyo ku aadan sidii barafka xaafadaha qaar ee magaalada Jigjiga ay uga qaadi lahayd hadda ay ku guda jirto waxa la soo diray dad loogu talagalay in ay nadiifiyaan wadooyinka sidoo kalena guryaha furaan maadaama baraf xoog leh uu xiray wadooyinka iyo sidoo kale guryaha dadku ay degan yihiin ee magaalada Jigjiga si lamid ah magaalooyinka kale ee Harar iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan dalka Itoobiya ayaa caqabadan barafku ku noqday maanta ilaa iyo maalintii shalay inkasta oo hadda roobabka iyo barafku ay u muuqdaan kuwo sii yaraanaya abukarday aad iyo aad ayuu mahadsan yahay shacabka magaalada Muqdisho waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan go'aanka duqa Muqdisho ee lagu furayo wadooyinka xiran ee magaalada isu socodka magaalada ayaa in muddo caqabado ay ka jirtay shacabkuna waxay ahaayeen kuwa dhibaato ku qabay waxa dhibaatada ugu badan ee wajahayay ganacsatada iyo dadka ardayda ah ee waxbarashadoodu ay tahay meelo kala duwan oo magaalada ah kuwaas oo badankood waxbarashada ka soo aada meelo ka baxsan magaalada Muqdisho qasabna ay tahay inay soo galaan magaalada laakiin jidadkii ay xiran yihiin sidaas darteedna ay ka habsaamaan waxbarashadoodii haddaba dadka magaalada waxay ka hadlayaan go'aanka duqa Muqdisho anaga dhibaato weyn bay noo geystay oo shacabka ay u geysteen aniga nin darawal baan ahay oo caasileeya oo bariis ku raadiyo ariyo xoogiisa oo gaadiid wada meelaan marsiyaan waa gaadiidka maantay horta iyo shalay maba shaqeynba ninkii gaariga iskale iyo dadka shaqaalaha dhib ay isku qabaan marka aan ka hadlo dhibaatada waxa dhibka isku qabaan meel la mara male dawladda waxa laga rabay wadada markay xirto wada kale oo ku meel gaar ah inay suubiso ma suubin bacaada la maraya caafada la maraya gaariga subax ku dhaco bacaadka oo galo oo rakaabka ka daataan waxa laga yaabaa inuu ku jiro 5 saacadood kaamil inuu ku jiro laga yaabaa oo meeshaas ninkaas laba go'aan baa uu qaadanayo ilmaha bariis ku raasanayo inuu ku boojogo meesha uu 500 kun shaqeeyay waxa laga yaabaa 100 kun oo shaqeeyo meesha uu milyan shaqeeyay waxa laga yaabaa inuu maartay 400 300 shaqeeyo